بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال waxaad ku soo dhawaataan iskuulkeenii Awdal Institute of Networking in marka maanta waxaan qaadanaynaa 10 casharradeennii noo socday kamid ah yani 10 cusub oo kamid ah si seenada casharradeennii noo socday qayb ka ah waxa la yiraahdaa route summarization waxa uu leeyahay waxa yani wuxuu ka dhigan yahay in nadweegyo badan ayuu isku ururiyaa marka hal nadweeg يو نقنايا أو يعني مثلاً أي ندوية كلي كوس قرصونيين يلا سمراء أو أحمر كلاسكو أوروريو ما يقرأت مركب وحويين إن فائدة إنك أوليه هنا وحويان كل يصيروا وشقة يد وان كونفجر قرينا إن الله فإني قلت سيدنا demonstration هذا صاروا مقارنة فائدة كوليه هذه دين شيء فائدة لو جهر يسوي وحويين نمبر بدن يعني اي بي ادريس بدن hadii aad router ku configure gareyso markaad show ip route aad tiraahdo wuxuu ku tusayaa nadweegyo fara badan ayuu ku tusayaa for example intaad ku configure gareyso ku tusayaa iminka tusaale ahaan maanta intaan demonstration ku sameyn doona waa 5 nadweeg 5 nadweeg iminka markaan ku configure gareyno hadaan show ip route 5 nadweeg oo dhan ayuu wada tusayaa laakiin hadii aan summarization waxa la yiraahdo ku sameeyo oo isku compress gareeyo oo isku cadaadiyo wuxuu ii noqonayaa hal nadweeg marka in wuxuu faa'iidooyinka uu leeyahay waxa weeyeen marka ugu horeysa wuxuu ii yareynayaa nadweegi waa number 1 oo magarasa reduce the number of routing size-ka oo magarasa routing size-ka ayuu ii yareynayaa table-kiiba magarasa faraaqay helaya talabaad wuxuu ii save gareynayaa waxa la yiraahdo bandwidth ama magaranaysa waxa ay data isticmaasho ay si fast ah ay data ugu transfer gareyso ama speed-ka ayuu iga cunayaa because computer-ki slow ayuu ka router-ki slow ayuu ka dhigayaa marka bandwidth marka ayuu cunayaa marka bandwidth-ka iyo speed-ku wax u dhaxeeyo oo saaso farqiya marka culimadu sheegayaan ma jiro macnaheedu waxa weeyaan fast marka haduu computer-ku magaranaysa data-du ayna helin magaranaysa wax fast yani fast hadayna u diri karin macnaheedu waxa weeyaan slow bay noqonaysaa marka bandwidth-ka ayaa ku yar weeyaan in saddexaad wuxuu sameeyaa waxa la yiraahdo reduce CPU usage isticmaalka processor-ka router-kan ayuu yareynayaa sababtu waxa weeyaan hadii 5 nadweeg oo sidaas ah oo magaranaysa mid bucket-ki soo gala ay ka yimaado router tusaalahan 5 nadweeg mid u socdaaba waa inuu wax lookup la yiraahdo sameeyo ama markuu isagu diro waa inuu kan lookup au sameeyo oo 5 router midba iskiisa 5 magaranaysan IP nadweeg waa inuu mid walba au interface ka baxayaan iyo wax process garay marka faa'iidada kan lagu summarize kan lagu sameeyaa kan ay daw faa'iido u tahay waxa weey bucket kala ka taga ee sida u socda ee ka u tagay 5 nadweeg hadii magaranaysa ay destination halkan ay u wada tagayaan oo yaa midalan halkan nadweegi kala ku xidhan ay u socdaan macnaheedu waxa weey kani waa inuu 5 lookup gareeyo marka lookup-ka au sameeyo routing table-ka interface ka baxayaan halkan hadii interface kale kaga xidhan yihiin ka hadlaynaya imka kuma xidhnaado waa tusaale ahaan halka interface ku xidhan tahay halka interface ku xidhan tahay halka interface kaga xidhan tahay oo router kale dhinaca ka wada yaalaan process badan buu sameeyaa laakiin hadii halkan xabad ka soo dhigo nadweega oo laakiin 4 ay ku hoos qarsoon tahay imka waa 5 soo ma 5taasan xabad ka dhigayna 4 ku hoos qarsoon tahay markaan kan aan magaranaysa summarize gareyno kan markuu u tago kan iskuma waalayo inuu 5 xabo oo eego laakiin wuxuu eegayaa uun nadweeg summary-gu meesha uu socday markuu arko intan oo dhan destination kan oo dhan markuu u socdo straight away magaranaysa waa u fududaanaysaa inuu lookup badan oo sameeyo maaha wuxuu eegayaa uun magaranaysa summary-ga marka destination-ka markuu tago isaga router-ku magaranaysa nadweegiisa eeganayo marka taas waa iga taa marka balan configure gareyno aan galno marka router 1 baan haysanaa marka router 1 ka isagii laftigiisa aan configure gareyno muxuu IP halkan adin tusa marka waxa weey interface serial kan horta marka hore configure gareyna interface kaas aan configure gareyna kan iyo kan labadan baan maanan configure kana baan configure gareyna hadii ilahay yiraahdo ma igarati okay waxa saadayaan yiraahdo kana waxa saadaas okay 0 okay 1/0 no shot IP address 192.168 50.1.255.252 because we are one
okay أنا شدنا وين رسومين ها كلو كريد بنسينا ناس عادي أو ساعات داس وين مر والبلسية 64 بانيجا إسكا استعمالها 1000 إن okay مركان كاين تا استعماله عدنا 2 router 2 كانوا تجي router 2 بي حرنا يا config interface serial 1/1 no shutdown isaga كلو كريد ماله because كان عسينه كيسن باسينه مركا كلو كريد مركا كان كلو كريد ما باهنا 192.168.1.50.2 because ka 2 وين سينا كو كل كا 1 باسينه ما هي 5.252 no shut 1 edison rakan inta no shirki warkiisu ku dhamaanaya kana save karaysan kan marka وين كمبيوتر وين أنا دوغيران كلا أيان إسقى كو مقارنة لوباك أنا استعمال إن هذه لا هذا interface loopback 0 يعني أنا دوغيران من لوباك كو configure كريننا فلوباك قلنا وتكنولوجي وانا أكسن أو ندوك simulation كوسية ويانا router كينوليه IP address حتى نشط داون لوباك جينا ترادي مبهنيت مركا مقارنة إن وحويان ما دركتها إن إسقى يا on إسقى 0.1 255 1 ما متكسسين هنا dot 0 sama okay dot 0 okay loopback 1 kan masuk sani ka kawanka marka octet ka saddexaad weeyaan waxa aan summarize kareenaynaa octet ka saddexaad weeyaan waxaan summarize kareenaynaa إلى ساعتين interface loopback 1 172.16 كا هو محو أها أوكي 01 سمعين أوكي أوكي okay marka waxa weeyaan routerkan ma ku configure gareynay oo radio ku configure gareynay marka waxaan rabnaa sidii aw intoon shantan marka bulsho IP route baan oranaynaa shantii network inaan ka helaan u baahanahay hadii la yiraahdo marka xoreena show IP route maaragta wuxuu inasiyay shan network ayuu inasiyay oo ah kii ugu sareeyay waa kuwaas waa wada /24 baaha sorry about that /24 bay ahaayeen ay garata markaas /24 baan ka dhigay halkaasaan ku iloobay inaan 424 u bedelay marka waa adiga arkaya waa 1 ma garanaysa waa 0 1 waa ka waa 0 waa 1 waa 0 1 2 3 4 ما قرأت إيوه halkan waliba waxbad baan ku sii darnayo waxaan idhi 1 2 0 1 2 3 4 ha 5 and 6 marka waxa weeye waa 1 2 3 4 5 6 lix nadwaag ayaa halkan shan baab ay nagu qoran lix nadwaag ayaan ku qornay halkan moogta 172.16 5.0 /24 ma garatay marka intaan aan rabnaa inaan gaabino on magaranaysa hal xabba ka dhigno marka waa inaan laakiin horta isticmaalo waxa la yiraahdo routine marka ujeedada ka dambaysa waxa weeye si hadhow markuu kan diro packet oo kuwan ka socda data kuwan ka socota intaan oo mid ka socota oo kan u diro suuna kan ugu raagin oo magaranaysa inta oo dhanba yani aanu u process gareyn for example yani nadwaagyada shanta nadwaag haday shantuba codsanayaan shan destination oo xaga kaga xigta waxa weeye isagoo summary haduu tago interface uu ka saaraya interface-kii marka hore ugu process garay hadii kale waxay noqonaysaa inuu ma garanaysaa oo u process gareeyo xabad one by one oo process gareeyo marka process badan ay ka cunto waxa loo kana CPU-ga safeska ma garanaysaa CPU-ga oo usage-kiisa inoo save gareynayo ayay ka mid tahay in bandwidth ku save gareynayana waa kamid because waxa weeye the longer oo packet ku balaado oo yani ma garanaysaa in packet yar because shanta network oo mid walba specific destination u socda router kan wada gaaraan
dee wuxuu noqonayaa baakadadan imika compress bay noqonayaan marka summarize lagu sameeyo laakiin marka kale way ballaaran yihiin baakadkii uu ka badnaa size ahaan uu weynaanaya markuu size ahaan weynaadina definitely waxaa ku cad inuu bandwidth badan cunayo ta koobaad ee number 1 ku uu leeyahay inuu ma garanaysaa inoo safe gareynayna waa inoo yareynayna waa routing table ka aan sheegayna oo imika tusaale ahaan show IP route markaan idhaa intan oo router table aan haysanaa soo ma intaasaan rabnaa inuu hal xabo ka noqdo hal xabo inuu noqdo ayaan rabnaa moogta marka hal xabo markuu noqdo ma garanaysaa waxaa inoo hadhaya shantii kale ee space ayaa inoo yani misalan wuu yaraanaya oo hal c oo kaliya hatuu noqonaya marka 1 2 3 4 kaas ay inoo hadhi doona waa eegana say u hadha hadii ilaahay yiraahdo waan gartay marka waxaan sameynaynaa subnettingkii maxaa la dhahdaa shantii lixdii network 1 2 3 4 5 6 ilaa halkaas ku kala duwan yihiin 1 0 1 2 3 4 5 waa 6 network sidaas moogtay waa 0 ga 1 inoo ilaa 1 to 5 iyo 0 ga waa 6 okay marka binary baan ku bedelay marka x tan aan saaray waxa weey 172 ga damar walba 172 waa iskaga wada mid moogto waanadu ka bilaabanayeen 16 kana waa iskaga wada mid oo binary inaan ku bedelno uma baahnin halka binary in lagu bedelo u baahan waa octet-ka saddexaad ma garatay ee 0 ay ku kala duwan yihiin oo network-na 0 ga ka yahay ka kalena 1 ka ka yahay ka saddexaadna 2 ga ka yahay ka afraadna 3 ga ka yahay ka shanaadna 5 4 ga ka yahay ka lixaadna 5 ga ka yahay okay wasaanu soo soconay ma garanaysaa halkay ku kala duwan yihiin uma dhex dhigaynaa ma garanaysaa qalin okay marka 0 gan hore waa iskaga mid xaqan aan ka soo bilaabaynaa 0 ga labaad waa wada 0 waa iskaga mid ka saddexaad waa wada 0 waa iskaga mid ka afraad waa wada 0 waa iskaga mid laakiin ka shanaad iyo qaarna 0 yihiin qaarna 1 yihiin marka kuwa iskhilaafsan iyaan separate kala siinayna kuwa iskhilaafsan halka ay iska khilaafeen 0 ga ka imika kaasi waa 0 network guys network kalena waa 0 waa sax intay 0 bay soo wada yihiin laakiin labada network ugu hooseeya 1 noqday Soomaa marka labada network 1 noqday waan ka reebay marka macnaheedu waxa weeye dividing point-ku in halkaas uu noqonaya anya space aan siiyo qalin ma yeelay dividing point-ku waka sidaas waliba kala kaxay dividing point-ku waka ya halkaas ku kala hadaan bitiski waxa weeye okay sorry kaasna aan xaqiisa raaciyay keen marka mid waxa weeye afartaas shantaas ayaa wada raacday mid walba shantaas ayaa raacday dividing point-ku 5 buu noqday waa 1 2 3 4 5 sama mid walba waa 5 ka loo geynaya 16 ilaan kuwani waa 16 waa 8 bido halkana iyo 8 bido halkana waa 16 sama 16 bay labadaas u taagan yihiin in 16 ka shanta loo geynaya /22 buu noqonaya oo VLS sama okay marka inaan saa ku summarize gareyno weeyaan okay maxaan halkeen ku summarize gareena waxaan ku summarize gareena horta show IP route baan marka hore odhanaynaa si aan u aragno shantii lixdii network oo ku wada ma garanaysaa router-ka inoogu wada jirta kadibna si aan size-ka u yareyno ma garanaysaa summary baan kan ku sameynaynaa marka summary-gu kan wuu iskaga jirayaa shantiisu laakiin kan ay faa'iido tahay waa taan idhi kana arkaya summary oo 5 ah imika tusaale ahaan kan haddaan tuuga imika u tagno oo nidhaahno anila show IP route wuxuu arkayaa shantii ma garanaysaa lixdii network buu arkayaa daywaka table-kiisu muxuu wada arkayaa EIGRP baa dynamic routing protocol inoo on ku sameeyay waa digan doontaan EIGRP na laakiin waa imsan network ayaan halkaasna 1 2 3 4 5 6 lixdii network halka ku sameysnay oo ku qornayd ba lixdiiba waan haysanaa marka si aan lixdan bagabigeyga hal xabo aan uga soo saarno oo hal xabo ka dhigno hal xabo aan ka dhigno kaasoo kale aan ka dhigno oo calaam /ka uu bedelan yahay iyaan doonana intan oo dhan inoo qarsoonto si au table-kan intan oo inaga qabsadeen network-kan ay noogu yaraato waa 1 kadib markuu kan bucket u soo diro oo kan ma garanaysaa bucket oo layer 3 bucket oo eegayo doon sidaan nidhi look up buu sameeyaa waxa la yiraahdo ma garanaysaa look up routine look up marka routine look up ku markuu shantan yahay shanta baynu eegay noqonay laakiin haddii shantii loo soo yar lixdii network haddii loo soo yareeyo hal xabo looga dhigay intuu lix xabo eegi lahaa hal xabo kaliya hatu eegaya marka waa fast processing kadib in destinationada kale halkaas kaga xidhan tusaale ahaan iyuu gudbinaya markaas saasuu noqonaya ma garanaysaa in numberka ugu horeeya waa numberku inoo yani
qodobka ugu horeeyay waa lambarku inoo yareynayo wuxuu inoo yareynayaa size ku inoo yareynayo waxbad buu inooga dhigayaa numberka labaadna bandwidth buu inoo save gareynayaa bandwidth waxa weey 5 jeer uu eegi lahaa am 6 jeer uu 6 nadway kala eegi lahaa hal mar ayuu eegayaa magaranaysa kadibna fast processing buu ku sameeyaa CPU guna wuxuu ku shaqaleeyahay fast processing oo control plane-ka ayuu inoo ilaalinaya yani inoo save gareynaa marka saddexda ayuu muhiimadooda ayuu leeyahay marka imkaan sameeyno maxaan nidhi 16 kan aan ku haysanay 5 bid inoogu geey 22 bay noo noqonayaan Soomaa marka waa inaan ku sameeyaa router 1 waa inaan tago waa inaan idhaahdo interface kan ku dhex sameeynaa interface serial muxuu ahaa kani interface serial 1/0 Soomahan 1/0 waxaan IP summary command ku wasala halkan aan igu qoro command iga halkan igu qoro waxa la dhahaa IP summary ama halkan aan ka soo copy gareyn doonaa isugan qoray IP summary waxa noqonayaa IP summary address EIGRB because EIGRB mid kala protocolada umba under interface ka lagu interface hostooda for example imka internet waxaan nidhay interface 0/1/interface serial 1/0 baan nidhay Soomaa interface kaas aan sheegana marka mar walba waxa lagu configure gareeyaa interface hostooda ee ma garanaysa in EIGRB da iyo ribta OSPF ka waxaan ku configure gareyn doonaa summary address ka in ma garanaysa in under process ka oo ma garanaysa OSPF ka ama protocol ka OSPF ka marka halkan idhaahno EIGRB IP summary address EIGRB kadibna waxaad sheegaysaa autonomous system ka waxaan isticmaalaynaa waa 100 kadibna waxaad leedahay ma garanaysa IP address ki baad sheegaysaa network so 172.16 inta waa iskaga mid 172.16 intaas kaga mid bay ahaayeen halka hawshu ka imanaysa waa ka ay ku kala duwan yihiin marka maxaa dhaynaa 16 Soomaa okay maxaa dhaynaa 0 because network ugu sareeyaad mar walba qaadanaysa imika kan ugu sareeya waa 0 Soomaa 0 ga qaadanaysa slash kan ba bedelmaya 0.0 kadibna maxaa la inaga rabaa subnet maskigi ma garanaysa marka waxa la yiri ABCD waa IP network waa subnet maskigi 255.255. halkii saddexaad dadka saddexaad bay waxaan ka shaqeynaynaa ma ay 5 bid inooga onta tahay Soomaa marka maxaa dhaynaa 5 iyo 6 marka loo geeyo waa 22 marka loo bedelo in subnet maskiga wuxuu noqonayaa 5 bid markaad ka ciso 248 buu noqonayaa marka 248.0 waxaad ku laabanaysan ma garanaysaa IP addressing hadaad saan u xisaabiyaad ka aragtaan marka inter ayaan nidhi marka already waxayna soo gaadhay ma garanaysaa in information oo ah dual 5 ki ama ma garanaysa EIGRB di oo processkaygu 100 ahaa ama autonomous systemkaygu 100 ahaa oo neighbor kaas lahayd waxa ma garanaysa resync bay samaysay ama resynchronization ayaa samaysay oo ah summary configure summary ayaa lagu configure gareeyay buu leeyahay marka kan wuxuu ina siiyay imika markii hore inaan show IP route 6 xabo oo kala ma garanaysa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 kiisiga intan deesran balkan ku qoran balkan nagu tusama marka halkan imika show IP route hadan idhaahno isaga laftigiisu wuxuu ina siiyay ma garanaysa hinti ama ma garanaysa in notice wuxuu leeyahay EIGRB di wadib ayaa u istaantay graceful restart bay samaysay ma garanaysa ayay samaysay marka restart waxay samaysay because waxay wuxuu arkayaa IP summary address ka ayaa u yimid marka hadaan show IP route waa inuu ina siiyo intan oo dhan waa inuu inaga qaado waa inuu ina siiyo hal xabo oo kaasa waa inuu ina siiyo show IP route waa ka show IP route balay muxuu ina siiyay hal xabo kaliya hatu ina siiyay because kani waa subnetkii moogtahay muxuu ina siiyay hal xabo halkan maxaan ku haysanay marka hore halkan waxaan ku haysanay 6 xabo oo kala gaargaara Soomaa oo de 6 halkan ku samaysana laakiin halkan muxuu inaga siiyay imika hal xabo /21 marka networkina waa kan magara kuna xidhan magarasa interface ka soo de interface kan ah moogtahay yani IP address ko interface kana marka sidaas ayuu number 1 kuugu badbaadiyay sidaas ayuu number 1 kuugu badbaadiyay magarasa table-kii waa ka yareeyay halku 6 xabo ka ahaa magarata yani waa example unde 100 network ayuu noqon doonaa hadhow toole marka enterprise network waa weyn aad ka shaqeynaysan laakiin hadda waa yani waa tusaale ahaan 6 network oo sida wada ahaa waa kan inoo yareeyay ee ka dhigay ma garanaysaa hal network kan nooga dhigay that's waa kow
ان lookup كان هذا طول bandwidth كان window save gareynayaa because waxa weeye halku 6 xabo kala dhil gareyn lahaa halka xabo kala dhil gareynayaa ee /21 ka sita because iyagii waa compressors kaga dhignay in magaranaysa CPU usage kana uu inoo sameeynaya sababtoo ah waqtiga halkan ku bixin lahaa fast processing ayuu inoo sameeynaya marka saas ayuu yahay marka command-gii aan ku laabto on halka idinku soo qoro way command-gii oo dhameystiran command-kan isticmaalay ma garatay waxaan noqonaa command-gani halkaas aan ku qoray command-gu waa ka IP summary address kadibna grb aan isticmaalay way command-gan isticmaalay waa ka in ma qaano version-kan waa cusub meesha si loo weyneynayo ma laha muxuu ahaa GN-string aan isticmaalay laakiin command-gan isticmaalayna waa ka marka I hope inaad ka faa'iideen insha Allah ta'ala aad ayaa idin salaamaya intaasan ku soo gabagabeynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi